ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in liiska murashaxiinta xildhibaanada Somaliland ay soo xulayaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi isagoo si cadaalad ahna arrintaasi uga shaqayn doona ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaare Rooble ayaa waxa uu tilmaamay in ay u siman yihiin labada mas-uul uusanna jirin cid gaar ah oo si gaar ah loo danaynayo, waxaana uu ugu baaqay in ay is-aaminaan siyaasiyiinta gobollada waqooyi kana shaqeeyaan in doorashada ay u dhacdo si hufan oo cadaalad ah. waxaa soo hartay walaalaheen Somaliland, senatorada iyo xildhibaanada Somaliland sida senatorada iyo xildhibaanada kale ayay xaq u leeyihiin inay doorashadooda ay u galaan sida ugu cadaaladsan. habraaci ugu dambeeyay wuxuu dhigayaa liiska musharaxiinta aqalka sare waxaa si wada jir ah u soo xulaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi iyo guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxaana ka hubinaya inaan la shaqeeyo diyaar u ahay, wayna ii siman yihiin sidaan hadda idin sheegay horena idinkugu sheegay si lamid ah ayay labadooda iigu siman yihiin, si cadaalada ayay u soo xulayaan, si cadaalada ayaan uga hubinayaa iyagana qalbigooda waxaan u sheegayaa inay wanaajiyaan ka shaqeeyaan horumarinta is-aaminaadda iyo inay doorashada ku dhacdo si hufnaan ah. cid dhacayso ama gruub dhacayana inuusan jiran ayaa halkan ka caddaynaya. sidaa halkan ku cad xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland waxaa dooranaya 46 xubnood, 23 xubnood oo ah odayaasha dhaqanka ee Somaliland Soomahan iyo 23 xubnood oo ka imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada. aqalka hoose ee Somaliland wuxuu la mid yahay sida habraacyada aqalka hoose ee dowlad goboleedyada ayuu raacayaa. waa waadix waay walaalayaalow, mas-uuliyadda gacmihiina ku jirtaa. anigana ninka idinku kontroolaya aan ra-iisul wasaaraha idinku jeegaraynaya oo kor idinkaga ilaalinaya ayaan ahay. shaqeeya, si hufan u shaqeeya, gacmahaas qabsada. meeshaan dheef hoose oo nin gaar ah wax uu helayna ma ku jirto. arrinta soo xulidda mudanayaasha ka soo jeeda gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay ahayd mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee doorashada hortaagnaa gudaha dalka Soomaaliya. mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi guddoomiyaha aqalka sare ee dalka iyo Mahdi Guuleed ayaa in muddo ahba waxay isku hayeen qaabka loo soo xulayo mudanayaasha gobollada waqooyi ka soo jeeda ee Somaliland. mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaanan la ogeyn garabkiisa sida uu ugu qanci doono hadalkan ka soo baxay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. maamulka Jubbaland ayaa waxa uu amaro dhanka amniga ah uu ku soo rogay magaalada Kismaayo oo baaritaano saakay ay ka socdaan. cabdimajiid cabbaas aadan ayaa warkan Kismaayo inooga soo diray. iyadoo dhowaan dowlad goboleedka Jubbaland ay awaamiir culus ka soo saartay hubka sharci darrada ee lagu haysto gudaha Kismaayo ayaa waxaa maanta magaalada Kismaayo ka dhaqan galay amarkii ahaa ee lagu baadigoobayay hubka sharci darrada, waxaana wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ahay magaalada Kismaayo maanta lagu arkayaa gaadiid oo ay saaran yihiin ciidan aad u hubaysan, kuwaas oo laga soo kala xulay booliska iyo nabad sugidda, waxaana ay baadigoobayaan hubka sharci darrada ee gudaha Kismaayo lagu dhex wato. saraakiil ka tirsan ciidamadaasi oo aan xiriiro kala duwan la sameynay ayaa xilligan waxa ay xaqiijiyeen in maanta sida uu qorshuhu yahay amarkaasi uu dhaqangeli doono, waxaana taliyaha guud ee ciidamada booliska ee Jubbaland General Maxamed Cabdi Sheekh Xujaale uu sheegay shir jaraa'id oo gudaha Kismaayo ku qab ayaa waxa uu markaa taliyaasha iyo waliba ciidamada xerooyinkooda ka soo baxaya ugu baaqay in aan maanta la arki karin askari hub gudaha Kismaayo ku dhex wato, waxaana xilligan uu sheegay in laga doonayo mas-uuliyiinta ilaalada wata in aysan markaa soo bixin iyaga oo markaa ku hubaysan qoriga AK47 sida uu hadalka u dhigay. oo taariikhda tahay bisha 9 inta ka bilaabato qoriga lagu arko magaalada gudaheeda ama furinta ka yimaado ama gudaha ha joogo, dheegayta nin walba waa maqlayaa. arrinta iyada maanta waa digniin, hebel loolama dan laha, shakhsiyaad loolama dan laha, waa ammaankiini, waa ammaankanagi, waa wixii ciidamadaas waxay tahay loo igmaday amniga in lagu sugo. maanta waxay ka dambeeyo waxaa digniintaas bixiyey guddiga amniga oo ugu horeeyo wasiirka amniga ilaa madaxweynaha, taliyaha guud oo ciidamada madaxweynaha ah. haddana waxaa noogu xirsaaran ka amni ahaan wasiirka amniga Generaal Dhuumaal ee wasiirka amniga. awaamirta waa la isla qaatay. waanta waxaan digniinta u bixinayaa waxay nin walba uu lahaa iyo nin walba jidkii uu lahaa inuu maro oo maanta ka hadla halkaa ka sheego waa wax guddiga amniga ka soo baxay, waa awaamiir la isfaraya.
gudaheeda qoriga lagu arko oo aanan ku soconin amniga aanan ahayn la xisaabtan buu leeyahay. sidaan horey u sheegan waxaa la marinayaa tacsiirtuu leeyahay iyo meesha loogu talagalo maraya. nin walbo qorigaada xafido, haddaad leedahay ilaaladaada xafido, qorigaada hanto. adigu hadduu ku waardiyeynayo asan shacabka lagu waxyeelaynin, waxyeelada shacabka qoriga adigu ku waardiyeynayo lagu sameeyo shacabka loogu geysto, mas-uulkaasaan kala xisaabtamayna, askarigana ciqaabtiisaan marinayna. guud ahaanba magaalada Kismaayo ee xaafadaheeda kala duwan ayaa waxaa xilligan lagu arkayaa ciidamo aad u hubaysan kuwaas oo isaga kala gooshaya xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo, waxaana ay baadigoobayaan hubka sharci darrada ee gudaha Kismaayo lagu haysto iyo sidoo kale askarta ka soo tagta xerooyinka ciidamada Jubbaland. Cabdilmajiid Cabbaas Aadan, Fantastic, KNN, Kismaayo. maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray maleeshiya beeleedyo ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka Sool ee maamulka Puntland. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa inoo faahfaahinaya. maamul goboleedka Puntland ayaa ka hadlay dagaal beeleedyo maalmo ka hor ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Sool, welina dagaalkaasi xiisadii ka dhalatay ay ka taagan tahay tuulada Finley oo u dhaxaysa Birta Dheer iyo degmada Boocame. inta uu socday dagaalkan waxaa ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland oo la hadlay warbaahinta Ilyas Cusmaan Lugtoor ayaa baaq nabadeed u diray labada beelood ee dirta ku dhaxmartay deegaanka Finley. waxaan rabaa inaan halkan ka diro baaq nabadeed dadka walaalaha ah dariska ah ehelka iyo wili abtiga ah shaqaaqadu colaadu ay maaragtay ayaamahan ay ka soo cusboonaatay, horeyna wax uga dhaceen, haddana doraad wax ka dhaceen. marka hore waxaan tacsi ka dirayaa dadkii ehelka ahaa ee labada dhinacba ka dhintay, in ilaahay samir iyo iimaan inaga siiyo, cawl khayr qaba iyo maaragtay jannaal ku risaaqo. inta dhaawac ahna ilaahay inuu boogadhayo, caafimaad ilaahay maaragtay iyo shifo siiyo. colaad wiil baa ku dhinta, wiil kuma dhasho. nabaduna nimco iyo naas la nuugay leedahay. waxaan leenahay arrintaas maaragtay shaqo wanaagsan oo nabadeed baa ka socotay oo aan maaragtay dadka ka shaqaynayay isimada iyo culimada iyo siyaasiyiinta iyo dowladda dhammaan maaragtay aan ku mahadinayno doorkii ay ka qaateen iyo meeshay taagnayd. nabaddu waa wax mar walba taagan in laga shaqeeyo, inaysan caqabad ku noqon nabadii socotay. wixii doraa dhacay waxaan halkan rabaa inaan fursad uga faa'iidaysto ka mas-uul ahaan iyo ka deegaan ahaanba. nabad baa dadkaas deeqda, nabad bay maaragtay ku badhaadheen. deegaan iyo dad 100 sano ama 80 sano colaadi dhex martay maaha. nin iyo qof dhintaa weligood isku dhac dagaal kama dhex dhicin. inay maanta inta aynu ku joojinno oo labada dhinacba dhaqanka iyo culimada iyo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka iyo in kasta oo nabadda garataa ay maaragtay fadhiga uga kacdo. warar hordhaca ayaa waxay sheegayaan in dagaaladii u dambeeyey ay ku geeriyoodeen 5 ruux, halka in ka badan 10 ay ku dhaawacmeen. colaadda labada dhinac oo ku salaysan murundhuleed ayaa toddobaadadii u dambeeyey waxay ka taagnayd tuulada Saaxmagaag oo horey labada dhinac ugu dagaalameen 28kii bishii tagtay ee Luulyo. Puntland ayaa marar kala duwan go'aano ka soo saartay colaadan si loo xakameeyo, balse waxba kama hirgelin. wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa waxa uu kulan qadka taleefanka ah uu la yeeshay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar, Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani. labada mas-uul ayaa inta uu kulanka khadka uu socday waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labageesoodka ah iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Qatar u dhaxeeya. waxa kale oo ay ka wada hadleen isla markaasna ay falanqeeyeen xaaladihii ugu dambeeyay ee arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxa uu soo jeediyey hindise dowladda Qatar oo xilligan ah shirgudoonka kaltanka caadiga ah ee 155aad ee golaha jaamacadda Carabta heer wasiir in ay soo hor dhigto faylka Soomaaliya shirka soo aadan ee wasiirada si looga hadlo horumarka siyaasadeed iyo xaaladaha amni ee Soomaaliya.
ardayda iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Pakistan ayaa waxa ay sheegayaan in ay qarka u saaran yihiin in dalkaasi laga masaafuriyo sababo la xiriira sharciyadii ay ku joogeen iyo ayagoo aan safaaradda Soomaalida ee dalka Pakistan aan wax jawaab ah ka helin. warkan waxa inoo haya Xamse Jaamac Xuseen. Soomaalida ku nool dalka Pakistan oo u badan arday wax ka barata dalkaasi ayaa sheegay in dhibaato weyn ay ka haysato fiisaha, waxaana intaasi ku dareen in safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi ay ka gaabisay howlihii loo baahnaa inay bulshada u qabato sida ay sheegeen. ardaydan oo la hadlay keenan ayaa sheegay in haatan qarka ay u saaran yihiin in dalkaasi laga mastaafuriyo maadaama fiisihuu ka dhacay waxbarashadooduna ay haatan cabsi weyn soo wajahday. marka hore waxay ahaan jirtay qaab manual ah inaan admission formska applicationada aan qaadno aan ku submit gareeno wasaaradda arrimaha gudaha Pakistan, laakiin sanadkan bilowgiisa waxay bedeleen nidaamkii viisaha oo waxay ka dhigeen e-visa ama online form. marka waxaa dhacday in ay wasaaradda in ku soo darin listiga qaadan kara ama isticmaalin kara systemkaas e-visa ah. Soomaaliya kuma jirto. waxay la xiriireen safaaradda Soomaalida sida noo sheegeen, kadib waxaa dhacday in wax jawaab ah aysan ka helin arrimaha la xiriira e-visa. ardayda maanta waxay taagnahay xaaladooda waa xaalad aad iyo aad u cakiran. waxyaabo badan oo viisaha ku xirnaa jira sida inay lacaga ka helaan wadamada dibadda, in ay admissiono sameeyaan, in ay jaamacadihii hore usii wataan, inay vaccine qaataan iyo wadanka inay ka duulaan. safaaraddu waa la xiriirnay dhowr goor, codsiyo badan waan u dirnay dhanka emailada, si shakhsi ahaan waa ugu tagnay. wax jawaab ah ama xushmad ah maanan ka helin. cid nala kulantay ma jirto. safiirkii wadanku wuu ka maqan yahay, iska dawareejin iyo beri soo laabta. cidna qaabishay ama na soo dhaweysay nagala hadashay barnaamijkan viisaha ah ma jirto. wasaaraddana waxay naga xiratay albaabadii. waxay nagu amreen inaan wax viisa ah aan u imaan karin. waxaa viisa la'aan nahay muddo ka badan 8 bilood. war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Soomaaliya ee Pakistan ayaa waxaa lagu sheegay in arrintaasi fiisaha ay ardaydu ka cabanayso sida ugu dhaqsaha badan wax looga qaban doono oo ay safaaraddu u taagan tahay sidii ardayda cabashada keenay u xalin lahayd. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wasaaradda gargaarka ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku eedeeyay in aanay weli gaarsiinin mucaawino loogu talagalay qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdifataax Cali Cumar Tawakal ayaa warkan Shabeellaha Hoose inooga soo diray. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi oo la hadlay warqabadka raadiyo kulmiye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka waran kulamo uu la qaatay wafdi heer caalami ah oo ka socday hay'adaha caalamiga ah ee markaasi dhanaya arrimaha bani'aadanimada. gudoomiyaha ku sugan magaalada Baraawe oo qadka telefoonka kula hadlay warqabadka Keenan ayaa sheegay in wafdigaas ay kala hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan horumarinta gobolka, hooy la'aan iyo biyo la'aan oo haatan ay wajahayaan dadka qaxootiga ee ku nool qaybo ka mid ah gobolkan Shabeellaha Hoose. waxaana uu intaasi ku daray in markaasi ka maamul ahaan ay wadaan dadaalo ku aadan dib u dejin dadka barakacayaasha loo sameynayo, waxaana uu ku baaqay dhammaan hay'adaha samafalka ee gobolka ka howlgala in si shuruud la'aan ah ay u howlgalaan isla markaana ay dadka danta yar ay wax u qabtaan. مدن وري إذاعة كلمي مدن توكل نبتي وإذا السلامة waxay waqti ballaaran oo maxaan ku radaa oo hay'adaha maxaan ku radaa UN-ka ay u bari gargaarka ama caawiya maxaan ku radaa shacabka ku dhaw koonfurta ama gobolka Shabeellaha runtii ahaayeen waqti ballaaran ay ahaayeen oo ay horkacisay hay'adda OJA UN OJA sida gabadha la yiraahdo Jundi Sak iyo dadka ay oo ahayd country director maxaan ku radaa deputy of country director ku-xigeenka madaxa laakiin raashinkaas ilaa hadda anagu ma garanayno meeshuu aaday. kulliga goobjoog baan markii maxaan ku radaa wasiiradda maxaan ku radaa lagu wareejinayay, laakiin hadda wasiiradda waxaan weydiisanay raashinkaas inay noo soo fasaxdo si ugu dhaqsiya badan. dadkii xilligii kuleeliha la galaya xilligii jilaalkii yaana dhihina hadda dayrtii badanaa ma bii badna, dalageedana ma badna, beeraha maxaa ku badanaa lagama faa'iido inta ugu badan. ilaahay inuu barwaaqo ka dhigo maahayn.
marka annaga waxaan qabnaa wasiirada waxaan ka codsanayaa wasiiradeena khadiija in raashinkaasi hadee ilaa hadda maxaan ku rahdaa gobolka waa la joojinaya raashinkii ciidamada maraykanka iyo talyaaniga usoo dhiibeen wasiirada meeshay geysay fadlan waxaan ka codsanaya gobolka inay usoo fasaxdo hadalka gudoomiyaha ayaa ku soo beegmaya xilli gobolka ay ku sugan yihiin dadyo barakacyaal ah kuwaas oo la liidan caafimaad darro hoy la'aan biyo la'aan islamarkaana maalmihii dambe dalbanayay gargaar bini'aadam